الحمد لله وكفى وصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أحبتي في الله، بني آدم سيد الليلة هذا ومخلوق أباها المرغل بإنه وضن ولاده إنه مجتمع لنولاده iyo inuu la mucaamaloodo inay mucaamalaad dhex maraan. keligii ruuxu gooni uma noolaan karo. in gooni loo saarana waa nooc cuquubo ah. sidaas daraaddeed in la isla noolaado la mucaamaloodo waa laga maarmaan. nabigeennuna sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wuxuu leeyahay mu'minka dadka ku dhex jira dhibka kaga iimaanaya dadkana u sabraya ayaa ka khayr badan mu'minka dadka ka dhexbaxa dhibaatadoodana aan u sabraynin. haddii la isu baahan yahay oo la isla nool yahay oo la isla mucaamaloonayo oo dana badan ina dhex marayaan, waxaan shaki ku jirin in la isqoonsanayo, waxaan shaki ku jirin in la iskhilaafayo, waxaan shaki ku jirin inay quluubtu istaabanayso, waxaan shaki ku jirin wax badanoodan u bogsanayn in la arkayso oo lagula imaanayo oo af iyo adinba leh. khilaaf baa imaanaya, waa la isqoonsanayaa, waa la isku dhacayaa. su-aasha muhimkii waxay tahay taasi waa tabiici in la isku dhaco, in la iskhilaafo, in la isqoonsado, in la helo dad xadgudub iyo dulmi wada waa wax jiray waana jiri doonaa. laakiin su-aasha isweydiinta le waxay tahay khilaafka see loo maareeyaa, see loo xakameeyaa, see raadka xun ee uu reebi karo looga badbaadaa, see baa loo baahan yahay ruuxa markay cid iskhilaafaan inuu u mucaamaloodo si yani wax way khilaafka iyo dhibkiisa iyo saamayntiisa loo yareeyo. arrinta muhimka taa iyadaa wey. allaha tabaaraka wa tacaala aadamaha abuurtay ayaa wax badan inoo sharxay sidii khilaafka loo maarayn lahaa. nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi oo mucallimkii bashariyada ah ayaa wax badan inoo caddeeyey sidii khilaafaadka looga badbaadi lahaa aahaarta xun ay leeyihiin. waxaan isku dayaynaa khudbadan iyo khudbooyinka soo socda inaynu ku taabanno qodobo muhima oo khilaafka maanta jira iyo ka imaan doonaba lagu maareeyo. khilaafku ma aha inuu gaadho gacan ka hadal, khilaafku ma aha inuu gaadho in la islaayo, khilaafku ma aha inuu gaadho in dhiig la daadiyo, khilaafku ma aha inuu gaadho in dal la burburiyo, khilaafku ma aha in masaalixdii guud la baabi'iyo inuu gaadho, khilaafku ma aha inuu bulshada iyo mujtamaca iyo qoyska saamayn weyn ku yeesho. khilaafka waa in la maareeyo, la xakameeyo oo la kontaroolo. say ku suuroobi kartaa? wuxuu ina baray qur-aanka kariimkii kow tilaabada koobaadii wax weeyaan isku dhucu waa imaanayaaye qalbigaagu mar walba ha fayoobaado. ilaan meesha dhibku ka imaanaya waa qalbiga. quluubtii baa kala fogaanayso isku dhacaysa, kadibna xubnihii baa isu imaanaya oo xumaan iyo iskula kacaya waxaan loo baahnayn. saas daraaddeed qalbigaaga ku dadaal mar walba inuu fayow yahay oo uu qaadi karo dadkoo dhan, ka khilaafsan, ka dulmiyey, ka ku xadgudbay, kay jecel yahay, ku necab yahay, qalbigaaga inuu qaadi karo isku day. xiqdiga iyo xasadka iyo nacaybka iyo uurkutaallada iyo waxaasi inaad iska dawayso mar walba. dabcan shaytaanku waa kugu soo ridaya, waana isku dayaa inuu qalbigaaga jirooyin badan geliyo, laakiin adigana waxaad u baahan tahay inaad dagaal gasho sifayso, mujaahadaad u baahan tahay. saas daraaddeed baa rabbigeen tabaaraka wa tacaala qur-aanka kariimka wuxuu inoogu sheegay ammaanay quluubta fayow. yowma laa yanfacu maalun walaa banuuna ila man ata allaha biqalbin saliim. maalinta qiyaamada xoolana janno laguma galo, carruuraad dhashayna janno kuma geyso,
ilaahay naxariistiisa waxba yani laguma helo adduunkan wax ku lahaa adduunkan madax ku ahaa yani madaxweynaan ahaa wasiir baan ahaa maalqabeen baan ahaa ilaahay agtiisa waxba kama aha maalinta qiyaamada laakiin waxa ku anfacaya waa fayoobida qalbigaaga waay qalbi fayow ilaahay ula tag shirkiga ka fayow shubahaadka ka fayow shahawaadka ka fayow dadka muslimiinta u fayow sidaasaad janno ilaahay ku galaysaa nabi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh maalin maalmaha ka mida ayuu nin masaajidka soo galaya ayuu wuxuu 3 goor yidhi jannada nin doona haddaad doonaysaan nin ahlu janna inaad aragtaan ninkaa fiiriya maalinkii ugu horraysay haddii la fiiriyey waa nin noocaas maalinkii labaad waa isla isagii maalinkii saddexaad waa isla isagii ninkii isagaa haddii la dabagalay war maxaa 3 goor in jannada loogu bishaareeyo keenay oo nabi maxamed ugu bishaareeyo sallallahu alayhi wasallam uu sheego inuu jannada galay haddii la dabagalay soom badan iyo salaad badan iyo cibaadaad badan lama helin ninku ma soom badna ma salaad badna dadka wax kale uu kaga sito badan ma muuqdo wax cad markii la waayay ayaa laga maarmi waayay in su'aal toos loo weydiiyo warniyahu nabiga sallallahu alayhi wasallam 3 goor janno kuugu bishaareynaan maqalay maxaa jira wax badan kuuma na arkin see wuxuu maxaa ku qarsoon waa intaasuu yidhi inta aad arkayso waxba iima dheera haddii laga tegi waayo habeen ma seexanin anigoo qalbiga ruux muslima wax ugu haya ninkii saxaabiga su'aasha weydiinaya arrinta baadhista ku sameeyay wuxuu yidhi mid daawaya midda aad ku gaadhay arrinta iyada cid kari kartana ayna jirin yaa awoodi kara maalintii imisa ruux baad isku dhacaysaan imisaad qoonsanaysaan maad awoodi kartaa habeen kasta markaad seexanayso qalbigaaga inaad sifayso oo cadaawaadka iyo xiqdiga iyo nacaybka ka saarto ma kari kartaa waa arrinta kari karta aad u yarta qalbigaaga marka fayoobe qalbigaaga ka saar xiqdiga iyo xumaanta ka saar qodobka labaad wuxuu yahay haddii isku dhac yimaado ruuxa aad isku dhacdeen ha goynin ha ka goyn salaanta ha ka goosanin ha ka jeedsanin ha goynin xidhiidhi 3 beri baa lagu ogoliyay nabigeenu wuxuu sallallahu alayhi wasallam xalaal ma ruux muslim ah inuu walaalkii xidhiidhkiisa gooyo oo ka tago 3 beri ka badan ama 3 habeen ka badan labada riwaayo waa ku yimaadeen labadaba riwaayadu waa ku timi oo 3 beri wixii ka badan inuu gooyo looma ogola oo goyntu macnaheedu maxay tahay in ay kulmaan oo kanina jeesado isma salaamayaan kanina dhinac buu u jeesaday kanina dhinac buu u jeesaday nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam labadoodana waxa khayr badan midkooda salaanta bilaaba riwaayad kale Abu Daawud uu warinayo min xadiis Abi Hurayra wuxuu nabigu leeyahay sallallahu alayhi wasallam ruuxi walaalkii 3 beri ka badan ka maqnaado gooya oo sida ku dhinta naar buu galay buu nabi maxamed yiri sallallahu rabbi wasallam alayhi naar buu galay wahalis sidaas daraadeed walaalka ha gooynin xidhiidhi salaanta ka qaad salaan goyntu waa mas'ala kale 3 beri baa lagu ogol yahay 3 habeen 3 habeen waxa lagu siiyay caradu inay ka degto ciilka faraha badan iyo xanaaqo inuu ka dago adiran nafisto kulku ka dago laana siday Soomaalidu tiraahdo cara waayeel waa la bariisiyaa carada waa la bariisiyaa waxoogaa markay karkarkeediyo kulaylka leedahay waa kii nabigu yiri salawaatu rabbi wasalaamu alayhi nin saxaabada ka laba nin oo saxaabada kamid oo murmayo is haysto nabigu arkay sallallahu alayhi wasallam hadalkooduna taagtaagay markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam waxaan garanayaa ninka xanaaqsan ee xididadu ay soo baxeen karkaray hadal haduu yiraahdo waxani dhaafayo ka tagay waxaan haysto dhan u dhaafay a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim ninkii isagoo karkarsan oo xanaaqaya loo tagay waxa lagu yiri war saas de nabigaasa yiri a'uudu billahi war ka cidaaf ka cidaaf bimaana ruux markuu karsan yahay xanaaqsan yahay wuxuu u baahan yahay inuu qaboobo 3 beri iyo 3 habeen ku filan inay caradaadu degto
markay cadhadu degto oo cudurdaarkii waqtigiisii la dhaafo soo noqo marka goynta jooji waa qodobka kale waay arrintaasi halisteeday leedahay aakhiradaadana way u darantay adduunkagana way u darantay ruuxu markuu cadho ku maqan yahay oo qalbigiisu ruux u jiran yahay oo dad u cadhaysan yahay oo cuqdadaysan yahay isagay dhibi intayna cid kale la gaadhin gogoshay kugu dhibi caawa dhan waxaad rogrogaysaa dadkii colaadu idinka dhaxaysay sariirtay kula gashay oo jidkay kula socotaa oo salaadii markaad ku jirto xanaaq shaydaan baa intuu ku soo geliyo ayaaba salaadaadii ma tukan kartid dagaal baad ku jirtaa adigii rafaaday dhib baa ku haysta culays baa ku haysta stress bay kugu keeni hurdo la'aan bay kugu keeni intaan aakhiraba la gaadho adduunkaad ka deedantay haddaad aayir qalbigaaga intaas sifaysa iska saamixi lahayd waxaan oo dhan waa ku dhaafi lahaa waa midda labaade acmaasha aynu samaynaynay khayrka in laynaga aqbalo dani waxay inoogu jirtaa inaynu dadka aynu saamaxno inaynu u noqonno nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ayaa wuxuu leeyahay maalin kasta oo khamiis iyo isniin ah acmaasha ayaa la bandhigaa addoommadu waxay sameeyeen ilaahay isagoo xogogaaloo ka warhaya yaa haddana loo geeyaa loo bandhigaa markaasuu ilaahay cid kastoo addoommadiisa ka mida waa u dembi dhaafaa ilaa nin mushriga mooye ruux ilaahay u sharigiyo gaal ah mooyaane gaal looma dembi dhaafo amaa intii gaal ka soo hadhay labaana iyagana ilaahay tabaaraka wa tacaala uusan u dembi dhaafin yeeyihiin waa laba ruuxoo cuqdad isu haysa acmaashoodiina alla wuxuu leeyahay tabaaraka wa tacaala dibdhiga oo u kaadiya ilaa ay soo heshiiyaan acmaashoodii dib u dhiga salaadoodii soonkoodii xajkoodii acmaashoodii u kaadiya sidaas daraaddeed dantaada aakharaa ku jirta dantaada caafimaadkaaga adduunna waa ku jiraa aakhara dantaaduna waa ku jirtaa saamax marka soo noqo qodobka xigaayo waxa weeye adiga waxaad noqotaa ha sugin saaxiibka adigu bilow xidhiidhinta bilow xataa haddaad dulman tahay xataa haddii lagaa gardaran yahay xataa haddii lagugu xadgudbay xataa haddaad wax tirsanayso mubaadarada qaado tilaabada hore qaado labadiinna midka wanaagsan noqo nabigeenu sal alla alay wasalam wuxuu leeyahay wakhayruhuma aladii yabda'u bisalaam labada iskala tegay ee isgooyey midkooda khayrka badan waa midka salaanta bilaaba waa midka xidhiidhka bilaaba waa midka soo dhoweeya walaalkii waa midka asagu dulqaadka sameeya kaasaa labadooda khayr badan buu nabigu yidhi salawaatu rabbi wasalam marka midka khayrka badan noqo khayrka qaado adigu bilow ma aha siduu shaytaanku kuugu sheekaynayo wuxuu ku leeyahay ma adigoo lagaa gardaran yahay oo lagu dulmiyey oo waxaa lagugu sameeyey oo tan lagu yeelay yaad haddana baryi miyaa ood isdullayni miyaa war dulli ha qaadanin isagu ha iskeeno isagaa gardaran naftaadiiyo shaytaan baa saa ku leh laakiin arrintu sidaa waa ka duwanta nabigeennu wuxuu leeyahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh addoon cid dhibaato u geysatay iska cafiyey oo saamaxay ilaahay tabaaraka wa tacaala cizi iyo sharaf waxaan ahayn uma siyaadiyo shaytaanku sharaftaasuu kuu diidan yahay markaasuu wuxuu kugu leeyahay waa dulloobi hebel haddaad u tagtood salaanta waa dulloobi haddaad xidhiidhkiisa bilowdo waa dulloobi ha isdullaynin war dulli meehe waa cizi iyo sharaf bal nabigeennu wuxuu tilmaamay sal alla alay wasalam tilaabadaa aad qaadatay ayaad saddexda hal mar lagdaysaa saddex xoog badan baad saddexdaba hal mar ka raysay nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi maalmaha ka mid a ayuu wuxuu soo maray rag lagatamaya nin baa halkaasoo kale jooga nin xoog badan oo khatar ah markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam ma haada warkani muxuu ah waxay yidhi rasuulka ilaahi ninkaa ma aragtaa haa waa nin lagdaa'a waayo waa nin khatar ah oo halis ah cid loo soo saaro ma jiro oo laga tankiisa u soo baxa ma jiro ilaa wuu lagdaa wax ka reeyaa lala'yahay rag isu tag nin walba isku day caasha laysgeli ninkaasi wax lagdallawaabaa layidhi rasuulka ilaahay wuxuu nebigu yidhi sal alla alay wasalam war ma idiin sheegaa ninkaa nin ka xoog badan nin ka adag ma idiin sheegaa haa noo sheeg rasuulka ilaahay
nebigu wuxuu uhi sal alla alay wasalam waxaa ka adag kana xoog badan nin uu nin dulmiyey ruux uu ruux dulmiyey markuu dulmiyey kadibna cadhadiisii qarsaday cadhadiisii qarsaday oo aan ka ficiloonin oo aan ka aargoosanin oo cadhadiisii qarsaday oo isagu isku ekeeyey wuxuu nebigu yuri sal alla alay wasalam sidaana kaga reeyey isagii shaydaankiisiina ka reeyey kan saaxiibkii ishayaanna shaydaankiisii ka reeyey hal mar buu wuxuu ka reeyey tilaabada iyada oo cadhadiisii inuu qarsada saaxiibkii iyo ciddii dhibaatada u geysatay inuusan ka ficil la qaadanina halkaa qodob buu wuxuu kaga reeyey tilaabada keliya iyo saddex kaga reeyey saaxiibkii horta waa lagdo waa ka reeyey laana wax weyn rayntu ma aha in aad dagaalka ku gacan sarrayso ma aha inaad dulmiga ku gacan sarrayso ma aha rayntu waxa weeyaan inaad adkaysi leedahay inaad dulqaad leedahay inaad tanaasul leedahay midtaasaa raynta ah saaxiibkii waa ka reeyey shaydaankiisii dabada ka wadayay lahaa aargooso war iska celi isagana waa ka reeyey saaxiibkii shaydaankii fogeeyey ee isaga durkiyey ee inuu soo noqdo u diidayna waa ka reeyey saddex cadow buu hal mar lagday allahu akbar saddex saaxiibkii oo muslim ah oo isgooyeen khasmigiisa ah iyo laba shaydaan buu hal mar ka takhallusay ninkaasi iyo ninka hal nin lagdaya ka xoog badan ninkaas ay leeyihiin ninna kama xoog badna laba nin hadday isugu tagaan way lagdi karaan hal nin buu ka reeyaa laakiin ninkani saddex buu hal mar lagday buu nabigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh saas daraaddeed aadaabta baro naftaada bar ku qasab waa wax la barto waayo ilaahay tabaaraka wa tacaala addoommada dabaa'icda noocaasoo kale qaarna waa ku abuuraa oo iyagoo ku abuuran bay dhashaan dulqaadka saamaxaadda qaarna way isbaraan waa muktasab way isku qasbaan way iska keenaan marka dambena dabeecay u noqotaa haddii ilaahay ku siiyeyna siyaadii haddaan ilaahay ku siinina tabaaraka wa tacaala baro in dadka la saamaxo muxuu ah mubaadarada la qaato adiga aad noqoto ruuxa saamaxaadda raadinaya xataa haddii lagaga gardaran yahay sidaa ayaa waxaa ina baraya diinteenna ina baraysa qur-aanka kariimka faman cafaa wa aslaxa faajruhu cala allah waalkaadimiina alghayd waalcaafiina can الnaas wallahu yuxibu اlmuxsiniin صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم وسبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك